howlgalo ay ciidamada booliiska ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu soo qabtay hub iyo rag lagu soo eedeeyay inay dhac ka geysanayeen qaybo ka mid ah Muqdisho waxaana lagu soo bandhigay xarunta dambi baarista booliiska Soomaaliya ee Muqdisho. Tirada dadkan ay caawa soo bandhigeen booliiska gobolka Banaadir ayaa ahayd 14 qof oo ay qaarkood ku labisnaayeen dharka ciidanka militariga waxayna ku hubeysnaayeen qoryaha AK47ka iyo hubka fudud. Kusimaha afhayeenka booliiska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo warbaahinta kula hadlay xarunta dambi baarista booliiska ayaa ka warbixiyay kooxahan iyo degmooyinka laga soo qabtay. Bulshada gobolka Banaadir iyo booliiska oo wada shaqeynaya ayaa iska kaashaday ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud oo ah ciidanka u xilsaaran sugidda ammaanka iyo ilaalinta hantida shacabka Soomaaliyeed ayaa caawa ka sameeyay howlgal ballaaran oo lahaa bartilmaameedyo gaar ah. Howlgalkaas oo uu saameeyay degmooyinka kala duwan ee ka tirsan gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka kala ah Kaaraan, Yaaqshiid, Hiliwaa, Holwadaag, Wadajir, Dharkeynle iyo Hodan. Intii ay ku guda jireen ciidanka booliiska Soomaaliyeed howlgaladooda kala duwanaa ay ku bacsanayeen kooxaha qowleysatada ah ee bulshada Soomaaliyeed baryahan dambe banaystay hantidooda iyo maalkooda. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen 14 qof oo gashan dareeska ciidamada qalabka sida kala duwanaanshaha dareeska ciidanka qalabka sida booliiska militariga iyo cid kasta oo leh darees gaar ah. Tuugadaas oo banaystay inay qaataan hantida shacabka Soomaaliyeed waxaa caawa gacanta lagu soo dhigay 14 ka mid ah tuugadaas ayagoo watay hubka fudud sida AK47ka, bistooladaha iyo waxyaabaha loo yaqaano small armiga sida mindooyinka iyo wixii la mid ah. Bulshada gobolka Banaadir oo soo ribood gareeyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed baryahan ku wada jiray howlgal oo iska kaashanayaan ciidanka booliiska gobolka Banaadir saldhigyadooda kala duwan iyo bulshada gobolka Banaadir ayaa waxa u sahlanaatay caawa in tuugadii ayadoon dhiig daadan gacanta lagu soo dhigo lana keeno xarunta baarista dembiyada. Haddaba bulshada gobolka Banaadir oo aan ugu mahadcelinayno riboodaadkii iyo sida ay noo la wadaageen xaaladaha kala duwan ee soo wajaha waxaan haddana ka codsanaynaa inay nagu soo wargeliyaan kuwa kale ee aan ku raad joogno ee banaystay hantidooda iyo naftoodaba. Bulshada gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka 17 degmo ee gobolka Banaadir saldhigyadooda waxaan ku wargelinaynaa in xilliyada habeenkii ah qowleysatadan wadata mootooyinka yaryar ee banaystay hantidooda ay la wadaagaan goobaha ciidamada booliiska sida rugaha ee ka agdhow ama saldhigyada si looga gacan siiyo gacan ku dhigidda iyo badbaadada hantidooda iyo naftoodaba. Tallaabadan ay caawa ku dhaqaaqeen booliiska gobolka Banaadir ayaa timid kadib markii ay xoogeysatay cabashooyinka ka soo yeeraya dadka degan degmooyinkan gobolka Banaadir ee ku aadan in ay soo badanayaan kooxo hubeysan oo dhac iyo boob u geysanaya dadka degan magaaladan. Maxamed Ibraahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho.